madaxweynaha maamulka galmudug mudane Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb kana soo degay garoonka Ugaasnuur ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada mas'uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug sida xildhibaano iyo wasiiro iyadoona madaxa golaha wasiirada maamulka galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ugu horeyn halkaasi uu ku soo dhaweeyay halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha maamulka galmudug caasimadii galmudug ee Dhuusamareeb ka soo degay maanta waa ilaahay mahadi si nabadgeliya oo sharaf badan shacabkii galmudug ay u soo dhaweeyeen madaxweyne Axmed Ducaale Xaaf aad iyo aad ayay shacabku kuugu heeloo yihiin aad iyo aad ay ku sugahayeen waxay sugahayaan kelimadaada sharafta badan leh ku soo dhawaaw si kalsooni leh wadaninimo leh ay ku soo dhaweynayaan jazaaka Allahu khayral jazaa Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha maamulka galmudug ayaa waxa uu sheegay in safarkiisan dhinaca cirka ah uu maanta ku yimid magaalada Dhuusamareeb kii ugu horeeyay uu noqonayo isla markaana hadda wixii ka dambeeya madaxda maamulka galmudug safaro aysan gali doonin isla markaana ay dhameystiri doonaan heshiiskii dhawaan labada dhinac ay wada gaareen markii ugu horeysay oo halkan garoonkan aan diyaarad uga soo dego markii hore aan nimidna dhulkaan ku nimi haddana waxaan maaragtay ka soo degay garoonka maantay waa waagii hore iska imo wayhayd iyo maanta imaasho dambe iyo reer kaalmeed ma jiro dalka waa in la joogaa waana joogahayaa insha allahu tacaala reer galmudug waxaan u sheegahayaa ilaahay ciidankii ilaahay inta yaroo noo hartana ha noo sahalo israacinta ah inta kalena waxaan idiin sheegayaa waa inaan bilaabannaa dhinaca kale madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in la fuli doono mashaariic kala duwan oo ay ka mid yihiin dhismayaasha wadooyinka dekada magaalada Hobyo isla markaana loo baahan yahay bulshada galmudug in ay ka gudbaan siyaasad una soo jeestaan horumarka deegaanada galmudug inaan dhulkeena dhisano inaan dib u heshiisiin samaysano inaan isku filaano inaan iskaa wuxuu qabso dalkeena aan maaragtay ku dhisanno oo aan iskaalmaysanno rag iyo dumar mid waxaysi midaa waxaysan mid xoog ku deeqay mid xoola ku deeqa kulligeeyo waa inaan u istaagnaa maanta dalkeena inaan dhisanno siyaasad iyo dagaal iyo waxaas waana soo halligeen 30 sannadood baan soo taagnay ilaahay maaragtay naguma soo celiyo mar dambe kuwaan maaragtay dalka haysana إن شاء الله تعالى سهل نوقف بحضورنا أمان سقف بحضورنا أننا وأنا نودي أرجعنا إن ضل كنا للسنة أنا وحنا كسر شقي وهذا جزء دلالي إن مدحويننا واقي فرماتش محمد عبد الله فرماتش واقي كان دقي وكسر وهذا الله الرماس هرمريتي يدسمه هنا مرنوي بلعبنا تكدي وبلعبنا دونته شدتك بلعبنا دونه gurigii maaragtay agoonta bilaaban doona jaamacadii waa bilaaban doonta meelo kale oo badanna waa ka bilaabanaysa meelaan isba ka bilaabanin lama arko Maxamed Cabdi Maxamed warbaahinta qaranka Dhuusamareeb